sidoo kale waxaan gacanta ku hayaa mid ka mid ah shirkadaha ganacsiga ee Puntland ku yaala si gaar ah ma rabo inaan magac xuso laakiin waa warqadda invoice-ka waa warqad caafimaad oo laga qoray isbitaal ku yaala magaalada Hargeysa ee Somaliland waxa ku qoran xubinta la daaweeyay magaceeda daawooyinka loo qoray iyo waliba dabcan waqtiga waxa sidoo kale la tusay qaar kamid ah invoice-yada shirkadaha ganacsi oo dabcan agab u soo raray kooxda halkan fariisinka ay u hayd waxaan ku suganahay wali meelaha ay ka socdaan hawlgalka Hilaac dabcan waa furimaha hore ay ku sugan yihiin ciidamada difaaca Puntland mid kamid ah askarta ayaa waxa uu ii dhiibay warqado kamid ah qaar kamid ah warqadaha iyo xogaha laga helay godadka ay kooxda ciidamadu kala wareegeen warqadan aan gacanta ku hayo waxa ku qoran hadiyada ciida sidoo kale dawladda islaamiga wilaayada Soomaal warqadan sida laga dheehan karo hadiyada ciida waxa jira qorshe ay kooxdu damacsanayd in ay ka geysato deegaanada Puntland mise waxa jira dhagar ay maleegayso oo ay doonaysay in ay ka fuliso qayb kamid ah magaalooyinka waaweyn ee Puntland ee kala duwan sida Garowe Boosaaso iyo meelaha kale dabcan inta badan waxay leedahay fasiro kala duwan hadiyada ciida oo saraakiisha ammaanka warqadahan iyo xogtan ayaga ruuxooda way gaartay sidoo kale waxaan gacanta ku hayaa mid kamid ah shirkadaha ganacsiga ee Puntland ku yaala si gaar ah ma rabo inaan magac xuso laakiin waa warqadda invoice-ka ee wax gadashada oo halkan waxa ka muuqda dalabaad aad u badan oo wax loogu gaday halkana ay kooxda Daacish ka soo gaartay ma doonayo maadaama kamana hor dhacaya baaritaanada ma doonayo inaan sheego magacyada shirkadaha sidoo kale halkan waxa ka muuqda qaar kamid ah warqadaha caafimaadka oo dabcan mid kamid ah isbitaalada waaweyn ee ku yaala magaalada Hargeysa oo muujinaya waxyaabo lagu daaweeyay dhaawacyada iyo xubnaha kooxda Daacish warqadan waxa laga qoray isbitaal ku yaala Somaliland si gaar ah Hargeysa iyadoo doctorka magaciisa ku sixan yahay mar rabo inaan ka sii hordhaco magaca iyo isbitaalka magaciisa dabcan xuba muujinaya in magaalada Hargeysa dhexdeeda xubnahan lagu daaweyn jiray waa sida laga arki karo cadeymaha sidoo kale shirkado kale to ayaa halkan ku arki kara magacyadooda ay ka muuqdaan waxa sidoo kale la tusay qaar kamid ah invoice-yada shirkadaha ganacsi oo dabcan agab u soo raray kooxda halkan fariisinka ay u hayd amar uma qabo inaan sheego magacyadooda oo baaritaanada laamaha ammaanku ay wadaan lagama hor dhacayo meel walba oo god walba ay tagaan ciidamadu waxay gacanta ku dhigayaan cadeymo hor leh oo qayb ka noqon karaya in la soo qabto kooxaha qaar kamid ah kuwa magaalooyinka jooga waa kuwa alaabta dalabka ay u isticmaali jireen oo halkan ay warqad ka qori jireen waxyaabaha ay u baalka tusaalahan oo kale to fiilo toojaj bateriyo tobacco badayeen sidoo kale magacyada qaar kamid ah maanduriyaasha ay ka muuqda cilaan baa ka muuqda waa agab kala duwan oo kooxdu ay u isticmaali jirtay dalabaadka goob walba ciidamada ammaanku ay tagaan waxay ka soo saarayaan qaar kamid ah cadeymaha loogu tagayo godadka kaasoo hadhow laga yaabo in laamaha ammaanka iyo ku difaaca Puntland ba ay ka caawisay in hore u sii wadaan baaritaanada ay hayaan